Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalkan ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay shaqada sanbabada sidii aan ugu sheegayba muuqaalkeenii hore haddii aad doonaysid ka bogasho wacan shaqada sanbabada ayaa ku lug leh dhowr habab kuwaas oo awood u siinaya isweydaarsiga gaas hufan oo taageeraya shaqada guud ee neefsashada waa kuwan dhinacyada muhiimka ah ee shaqada sanbabada shaqada ugu horeyso waa neefsashada micnaha neef qaadashada iyo neef saaridda inta lagu jiro neef qaadashada muruqa diaphragmka waxa uu sameeyaa contraction hoos ayuuna u degaa halka muruqyada external intercostalka ay isku aruursadaan micnaha ay contraction sameeyaan oo ay ballaariyaan qafiska feeraha tani waxay kordhinaysaa mugga daloolka thoracic taas oo keenaysa hoos u dhaca cadaadiska hawada ee sanbabada hawadu waxay markaas ku qulqulaysaa sanbabada sababtoo ah farqiga cadaadis ee u dhexeeya jawiga iyo alveola ereyada qaar inaa hadda sharxo looma baahna sababtoo ah muuqaalkii hore ayaan ku soo sharxay neef saariduna waa cagsiga neef qaadashada sababtoo ah muruqa diaphragmka wuxuu sameynayaa relaxation kor ayuuna soo aadayaa halka muruqyada externalka ay sameeyeen ay qafiska ballaariyeen dib ayay qafiska u soo yareynayaan dan markaas waxaa dhalanaysa in gudaha sanbabada uu cadaadiska aad u kordho kadib hawadii sidaas ayay kusoo baxaysaa shaqada xigta waa isku beddelka gaaska oo ah oksijiinta iyo carbon dioxide-ka oksijiinta oo ah hawada la neefsado ayaa ku fido xuubka alveola ee xididada ama capillariska sanbabada dhiiggan oksijiinta hodanka ku ah ayaa markaa loo qaadaa wadnaha waxaana lagu sii shubaa jirka oo dhan halka carbon dioxide isla mar ahaantaana carbon dioxide-ka ay soo saareen dheefshiidka kiimikeed ee unugyada waxay ku soo daadisaa xididada capillariska dhiigga ee alveola si loo sii daaya hawa ahaan marka la leeyahay isku beddelka gaaska waxaa loola jeedaa oksijiinta oo jirka qaadanayo iyo carbon dioxide-ka oo jirka wasaq ahaan iskaga soo saarayo labadaas ayaa laisku beddelayaa shaqada kale ee xigta waxay tahay sanbabadu waxay soo saaraan wax loo yaqaano surfactant unugyada qaaska ee alveola waxay soo saaraan surfactant waa walax yaraynaysa xiisada dusha sare ama dhexda alveola dhexdiisa tani waxay ka hortagaysaa in ay isku dhegaan inta ay neefsanayaan ama neefta saarayaan waxayna ka caawinaysaa ilaalinta qaab dhismeedkeeda sanbabadu waxay awood u leeyihiin in ay kala fidaan sidoo kalena ay hadhowdina dib ugu soo laabtaan qaabkoodii caadiga ahaa waana sida buufinka oo kale mar wuu kala bixi karaa inta uu doono dibna ayuu ugu soo laaban karaa intii normalka caadiga ahayd qaabkan ayaa muhiim u ah isweydaarsiga gaaska hufan iyo shaqada caadiga ah ee neefsashada wareegga dhiigga ee sanbabada halbowlayaasha sanbabada ayaa wadnaha ka qaada dhiigga deoxygenatedka ah ilaa ay sanbabada ka geeyaan halkaas oo ay ka soo helayaan oksijiin dhiigga oksijiinka leh ayaa ku soo noqdo wadnaha isaga oo sii marayo ama lagu soo qaadayo xididada ama veyniska sanbabada capillariska sanbabada oo ah xididada yaryar ee dhiigga waxay ku wareegsan yihiin alveola waxayna fududeeyaan gaaska isweydaarsiga hawada alveola iyo qulqulka dhiigga nidaaminta neefsashada chemoreceptorska waxay ku yaalaan aortaha halbowlayaasha carotid iyo maskaxda waxayna ogaadaan isbedelada oksijiinta dhiigga carbon dioxide-ka iyo heerarka pH-ka waxay calaamado ama signalis u diraan xarumaha neefsashada ee maskaxda si ay u hagaajiyaan heerka neefsashada iyo qoto dheeraanta neefsiga si waafaqsan sidoo kale xakamaynta xarunta neefsashada ee ku taalo jiridda maskaxda ayaa nidaamiso neefsashada waxayna ka kooban tahay medullary respiratory center iyo pontine respiratory group oo kale ah xarunta neefsashada ee medulla iyo kooxda neefsashada ee pontine howlaha kale ee sanbabada waxaa ka mid ah acid base balance sanbabada ayaa door muhiima ka ciyaaro ilaalinta dheelitirka pH-ka ee dhiigga iyaga oo nidaaminaya heerarka carbon dioxide-ka sidoo kale shaandhaynta iyo huurinta hawada habdhiska neefsashadu waxa uu shaandheeyaa walxaha qalaad waxa uuna huuriyaa hawada inta aysan gaarin alveola halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu alla idmo khayr badan